dalkeenii warsan baa ka yimid dawo iyo nolol baa la helay inuu dulligii ka baxay deqoowanba waan ogahay dalkeenii warsan baa ka yimid dawo iyo nolol baa la helay inuu dulligii ka baxay deqoowanba waan ogahay deegaanka dhulkeenaye duliyo dooxiyo bannaan khayraadku ku daadsan yahay aan soo daawanay deeqaay kaalay ila deegaanka magaalada Jigjiga hoteelkan oo ay ku baxday lacag gaadhaysa 50 milyan oo bir ayaa waxa dhisay Xaaji Muuse Group oo ay ku boqodeen 5 dhalinyaro oo qurbo joog deegaanka u dhalatay oo dalka dib ugu soo laabtay waxaana xariga ka jaray hoteelkan iyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdixakiin Egaal waxaana Mudane Cabdixakiin Egaal oo ka hadlayay xafladii furitaanka hoteelkan uu ka soo jeediyay hadallo kooban oo mahadnaq iyo dhiirigelin isugu jira hoteelkan aan aragno kolay kuma imanin shaqo fudud laga bilaabo qorshihiisa maalkiisa fikirka la geliyey waxaa loo soo maraysan anagu aaminsanahay hawl dheer shaqo badan ayaa loo soo galay waxaan oran karnaa maanta hoteelkan aan joognay aan furaynaay wuxuu ka mid yahay shaqooyinkii badnaa ee dibadaha lagu aaday ee dadkii waddankan u dhashay lagu soo wacyigelinayay natiijadii ka dhalatay ayay ka mid tahay oo saaka u taaganahay taas ayay muujinaysaa inay natiijo dhar ay ka imatay xukuumaddu socdaalkii badnaa ee dibadaha ku aadaysa sidoo kale waxaan ku boorinayaa qurbo joogta in ay lagu daydo wasiirka xafiiska maalgelinta ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdinaasir oo isna ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay ayaa isna dhankiisa ka hadlay xafladaasi sahal kuma imaadaan runaantii dad qurbaha wax ku soo bartay qurbaha ka shaqaystay inay deegaankan imaadaan ay ku soo dhiiradaan wax sahlan ma aha waxa isheeda qabanaysaa qurbo joog fara badan oo hadda deegaankeena maalgelin ka wado runaantii marka arrintaas waa dadaalkii xukuumaddeena dibadda marra badan oo la sameeyay way marka waa alxamdulillah rabbil caalamiin in annaga iyo qurbo joogta dibadda la isfahmo runaantii dawladdeena deegaanka Soomaalida Itoobiya oo madaxweynaha horkacaya ayaa ma hadda iskale in loo mahad celino mudan joogta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa waxay kaalmo kala duwan ka qaataan guud ahaanba geedi socodiyada horumarneed ee ka kala socda dalka iyo deegaanka sida uu sheegay wasiirka xafiiska xiriirka qurbo joogta ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Bari maruu ka hadlayay munaasabadii xariga looga jarayay hoteelkan City Crown kaalinta qurbo joogta ee dhinaca horumarka iyo nabadgelyada in ay tahay arrin ku dayasho wanaagsan maanta hoteelkan aan isugu nimid kaas oo ma garanaysaa arrin ku dayasho mudan ah hoteelkan 5 star-ka ee maanta xafladiisa aan u fadhino waxaan leenahay qurbo joogtu waxay ka qaadatay kaalin muhiim ah sanadihii ugu dambeeyay dhinacyada maalgashiga kaas oo ah istiraatiijiga dhow iyo ka fog ee waddan iyo ka deegaan ahaanba aan u soconno in dhinacyada maalgashiga kor loo qaado marka waxaan leeyahay mas-uuliyiinta ama ma garanaysaa dadka maanta meesha isugu yimid in ay sidaa u ogaadaan waxaan leenahay
maxamuud iyo ma garanaysaa faamilkiisaba waxaad samayseen arrin ku dayasho mudan oo aada iyo aada loogu farxo ayaad samayseen. qurba joogta kalena waxaan ku wargelinaynaa ama la socodsiinaynaa intii horay u maalgashatay ama uu socdo dhismayaashoodu ama mashaariic kala duwan oo maalgashi ah ka samaysay deegaanka in ay ku mahadsan yihiin, kuwa kalena in ay ku daydaan oo ma garanaysaa ay maalgashiga deegaanka oo run ahaantii fursado badan ay ka bannaan yihiin in ay siday ugu maalgashan lahaayeen deegaankooda ay ugu soo hirtaan. taas ma aha oo keliyata in ma garanaysaa tan maanta aan u fadhino kale. dhankiida marwuur raxmed suldaan maxamuud haybe wasiirka xafiiska arrimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo munaasabadani ka soo qayb gashay ayaa tilmaantay inay aad iyo aad u soo dhaweynayaan qurbo joogta deegaanka loogana baahan yahay inay sii dardargeliyaan guud ahaanba ka qayb qaadashada geedi socodada horumarneed ee dalka iyo deegaanka. hotelkan furitaankiisa city karo runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay. runtiina in maalgelin la sameeyo ama la maalgeliyo waxyaabaha ilaahay laga helo weeye. ilaahay aada loogu mahadnaqo. ilaahay baan ugu mahadnaqayaa. marka labaadna waxaan ugu mahadnaqayaa faamilka hotelka intuu ku midoobay. hotelkan maanta darajadiisi uuna kasii jirin dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya caasimadeeda. maanta maaragtay caasimadda Jigjiga oo ka qaaday ayaan maaragtay aada iyo aada ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay dhammaan qurba joogta kale ee iyaduna dadaalka ballaaran ka waday meesha fiican u maraysana iyaga naftigooda aada iyo aada baan ugu kuwa kale iyaguna dibadaha ku maqanna waxaan leeyahay waddankaagood maal gashato waa wax aada iyo aada u fiican. waa hantidaadii oo seefi ku ah, sababtoo tahay meel shay aad u dhalatay hantidaada markaad geysato hantidaadu meel ay aada maaragtay dee baad dhigtay baan dhihi karaa. runtii waxaan leeyahay tan u dhayadoon hayn dadaal badan oo fiican baad samayseen, laakiin waxaan leeyahay dowlad deegaanku uu ballaaran yahay. marka baraanjiyo kale inaad samaysaan ayaan idin rajaynayaa. maaragtay hoos usii dhaadhicisaan, waayo dalkeenu maanta horumar ballaaran ayaa ka jira. hadduuna horumarkaas una jiri lahaynna maydaan hawooteen inaad hotelkan maanta maaragtay darajadiisa buuxiyey 5 star inaad maaragtay samaysaan. laakiin waxaad ugu calwadeegteen eed hantidiina maaragtay u geliseen waxa weeyaan horumarkan ballaaran ee dowlad deegaanku uu sameeyey iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba maaragtay dadaal ballaaran lagu sameeyey. sababtoo tahay markii dadaal la sameynayo ama wax la sameynayo sida haddaba hotelkan ka muuqata far u dhafool ma dhaqdo. runtii waxaad dareemaysaa wixii la iskugu tago inuu maaragtay wax fiican ay ka soo baxayaan. marka taas ayaa keentay isku tagga aynu iskugu tagnay deegaankeenna inuu horumar ballaaran uu helo. dunida dhaqaalaheedu uu dhexdhexaadka yahayna inaan gaadhnaan doonayno. runtii haddana aan dhihi karo bilow fiican ayaa jira 5 sano ee u dambeysay. 5tan dambana aan doonayno inaan maaragtay la tartanno oo dhaqaalaheena maaragtay dhaqaalo dhexdhexaada sida dunida gaadhay iyaduba dadaal bay ku gaadheen. innaguna dadaalkii 5 sano aan soo wadnay inaan sii wadno oon mar walba maaragtay aynu dunida dhexdhexaadka yahay aan gaadhnaan doonayno. runtii inaynu sidan oo kaleeto maaragtay uga dadaalnaa looga baahan yahay. marka waxaan leeyahay intii dhexda kusoo jirtayna ilaahay ha la gargaaro. ininkana wax badan baa inin dhiman. marka ilaahay ininkana ha la qaraqto, ha la gargaaro. assalaamu calaykum.
munaasabadan oo sidoo kale goobjoog ka ayeen kooxaha fanka dhaqanka iyo suugaanta ayaa waxaa isna dhankiisa ka hadlay maayirka maamulka magaalada Jigjiga mudane Cabdirasaaq Saxane oo tilmaamay in hoteelkan uu kaalin mug leh ka qaadanayo bilicda magaalada Jigjiga. dhammaan mas'uuliyiinta heer deegaanka ka soo qayb gashay xafladan sharafta kale ee lagu macsuulay xafladan furitaanka hoteelka qurbajoogta iyo dhammaan dadweynaha ku sugan goobta waxaan ilaahay waxaa farxad ah inaan kala soo qayb galo xafladan qaaliga ah ee maanta lagu daafurayo hoteelkan City Crown oo maalgashaday maalgeliyaha Maxamuud Shujaac Maadeer ee ka yimid waddanka Finland waana run ahaantii wax aad ugu farxo waxaan ilaahay aqbaliyo marka xiga waxaan aad u jeclahay inuu mahadceliyo maalgeliyahan sida qaaliga ah uga qayb qaato horumarka suuban ee ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dadweynaha shacabka ku nool magaalada Jigjiga waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay waxaad soo kordhisay ee ah hoteelkan qaaliga ah ee dhammaan shuruudihii standardka looga baahnaa 5 star ka buuxiyay isla markaana helay uu qanaga ama aqoonsiga inuu hoteelkan yahay 5 star isla markaana license-kiisa la soo siiyay waxaa wax lagu farxaa oo anaga garab noo ah oo maxaan ku rahay xukuumadda deegaanka Soomaalida garab u ah inaan helno maalgeliyayaal noocan oo kala oo limaataawiya maxaan ku rahay dad maalgeliyayaal horumarineed oo isla markaana maalgashada deegaankooda soo kordhiyay iyagoo hantidooda iyagu leeyahay inay ku qabsadaan wax ka soo kordhiyaan isla markaana ay maxaan ku rahay hantidooda ay uga faa'iideystaan ay uga faa'iideeyaan deegaanka iyaguna ay ka faa'iideystaan deegaanka ay uga faa'iideeyaan marka waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay waxaana ku dayasho mudan in maxaan ku rahay dhammaan qolka joogta deegaanka iyo maxaan ku rahay dadka hantida leh ay ku daydaan Maxamuud oo ah maxaan ku rahay in run ahaantii qaalina waa isla markaana mudan in wax badan lala qabto taariikhdana meel wanaagsan maxaan ku kaga jira annaga ka maamul magaalo ahaan aan u diyaarinay inaan maxaan ku rahay shirmaadno aan maxaan ku rahay abaalmarin siino abaalmarintaas oo ku mutaystay bilicda magaalada inuu wax kusoo kordhiyey inuu maxaan ku rahay wax ka qabtay facility magaalada looga baahnaa magaalada lafteeda shuruudaha looga baahan yahay waxaa jira magaalada Jigjiga facility-ga ay leedahay magaaladu infrastructure-ka ay leedahay hoteelada 5 star ee ka jira standard-ka buuxiyey marka taas macnaheedu waxay tahay Maxamuud maanta wax buu noo qabtay garab buu noo yahay wuxuuna wax badan ka qabtay horumarka magaalada Jigjiga iyo bilicda magaalada Jigjiga isagii walaaladii dhammaan Xaaji Cabdiraxmaan sidoo uu dhigay dhammaantood waa diin mahadcelinaya sidoo kale waxaan ku boorinayaa qurbajoogta iyo dadka maalqabeennada ee deegaanka dal iyo dibadda meesha joogtaan inaad qaadataan fikirka Maxamuud qaatay ee geesinimada leh oo hantidiina gashataan magaalada Jigjiga hantida la geliyana ayna ahayn oo kaliya mid lagu khasaaraya ay tahay mid lagu faa'iideeyo waa meel nabadgelyo isla markaana uu ka jiro maxaan ku rahay sinaan iyo mid loo sameeyay qof walba hantidiisa wuxuu gashaday inay secure tahay cidna kaga dabaymaanaynin dhammaanad buuxda leh waan ku boorinayaa kusoo dhawaadna ilaahay kuwii sameeyeen iyagana waad mahadsantihiin baan leeyahay dhammaan qurbajoogta kale isku dayga wada maxaan ku rahay dhaxda u marayana waxaan leeyahay sida Maxamuud oo kale si dhaqsaa inaad u dhammaystirtaan ayaan idin rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin 100% waxaan ku faraxsanahay 100% oo farxadii ah inaan la qaybsado farxadda maanta furitaanka ama daafurka xafladan City Crown aad baad u mahadsantihiin dhankooda mulkiilayaasha hoteelkani ayaa tilmaamay inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin inay maalgashi noocan ah ka sameeyaan deegaanka isla markaasina ay ku dhiirigelinayaan qurbajoogta inteeda kale inay ka fuliyaan mashaariic noocan ah shaqo cusub aan ku soo kordhinay deegaanka dhammaantiin aad qayb ka ahaydeen la'aantiin aan suurta gasheen inaan maanta halkan insha Allah tacaala xariga uga jarno waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisa kadib u mahadcelinaya dhammaan madaxda sharafta lagu horeeyay madaxweyne ku-xigeen mudane Cabdixakiin Cigaal ahna wasiirka howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka aad buu mahadsan yahay mudane Cabdixakiin ka soo qaybgalkiisa iyo dhammaan wasiirada hogaaminaya xafiisyada kala duwan ka kala socda maanta munaasabadda halkan joogno waa inaan maanta xarig gananta nabadeed eliyaalo inay deeqdo admiga eliyaalo dowladnimo sharaf tahay eliyaalo lagu jamacada hela eliyaalo lagu dhiigan durusta eliyaalo farsanay cidda hooyo ansodaawane deeqay kaalay la dalxiisay
nabadeeday heliya heliyalo inay deeqda adduunka heliya heliyalo dawladnima sharaf tahay heliya heliyalo dawa jaamacadeena heliya heliyalo lagu dhiga durusta heliya heliyalo dalsarehay ciidda hooyo ansadaawane deeqabka halay ila dalxiise dalsarehay ciidda hooyo ansadaawane deeqabka halay ila dalxiise degananta nabadeeday heliya heliyalo inay deeqdo admiga heliya heliyalo dawladnimo sharaf tahay heliya heliyalo dawan jamacadaheena heliya heliyalo lagu dhiigan durusta heliya heliyalo dalsanay ciidda hooyo ansadaawane deeqayka halay ila dalxiise dalsanay ciidda hooyo ansadaawane deeqayka halay noola dalxiise heliya heliyalo inay deeqda adduunka heliya heliyalo dawladnima sharaf tahay heliya heliyalo dawa jaamacadeena heliya heliyalo lagu dhiga durusta heliya heliyalo dalsarehay ciidda hooyo ansadaawane deeqabka halay ila dalxiise dalsarehay ciidda hooyo ansadaawane deeqabka halay ila dalxiise degananta nabadeeday